السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن صاحبada ku xiran page-keena Caamir Rable Channel. Maanta waa idin salaameynaa. Maanta waxaan rabnaa inaan sameyno experiment waxay tahay sida dadka ay aaminsan yihiin Dubai in nolosheeda ay qaali tahay. Marka waxaan rabnaa inaan ogaano maanta Dubai nolosheedu ma qaaliba mise waa mid iska caadi ah. Labadaas midaas aan ogaanayna. sida aan ku ogaan karno waxay tahay hadda waqtiga xadarkan la joogo waa aragtana amalena waxa waaye 10 saac iyo 9 daqiiqo waaye. waa Ramadaan ayaa wuxuu yahay 21 ah. marka waxaan sameynaynaa waxaan fiirinaynaa afarka inta ku baxayso calaa qofkii ayaan ogaanaynaa. waxaan sameynaynaa waxaan tegaynaa maqaaxidan tegaynaa afarka markii la gaaro insha Allah cuntaan dalbanaynaa waa cunaynaa intii nagu baxdo lacag ahaan waan idin soo sheegaynaa. marka xataa laba qof aan nahay alxasil, marka labadeena qof calaa qofkii lacagta ku baxda ayaan soo sheegaynaa. marka dadka waxay ogaanayaan in nolosheeda ay qaali tahay iyo inay caadi tahay. marka waxaan tegi doonaa maqaayad Soomaaliyeed ayaan ka afuri doonaa. marka afurka iyo waxaan isku qaadaynaa iyo cashadii iyo waxa dhan aan isku qaadaynaa. markaas kadib aan ogaanaynaa magacayga waa Master Marka. hadaladeedu waxa u badan inta badan marka u badan. reeqooyiga kale ma dhihi karno dabeetana waxaan dhahaa sidaa dabeetana ma dhihi karno faant. marka waxa waaye marka asla socon alxasil waxaan ogaanaynaa maanta lacagta ku baxdo qofka jooga magaalada Dubai ee afarka uga baxaysa. marka asla socon magaalooyinka Carabeed in Ramadaanka aad ku soontid waxaa jirto waxyaabo qof ay ku fiican yihiin jirto. waxyaabo horta ay ku fiican yihiin waxaa ka mid ah dhanka cibaadada. waqti walbo waxaad ku jiraysaa salaad taraawiix quraan akhris aad ku jiraysaa. sababta waxay tahay dadka dhan sidaas sameynayo. waxaa jirta mid kaleetood oo ah dhanka cuntada oo kaleeto, afurinta oo kaleeto, cuntooyinka xilliga Ramadaanka oo kaleetood cuntooyin waxaa la iska helaa free. inkastoo Soomaalida ay yihiin dad waxaan maqli jiray Soomaalidu qabay leedahay. Soomaalida marka dhankaas loo fiiriyo dad qab leh waaye. sababta waxay tahay waxay ka faanaan cuntada masaajidada laga bixiyo ama ay dowladda bixiso way ka faanaan. waxaan nahay dadka kaliya ee masaakiin ah haddana kibirsan. ma arkaysid qof Soomaali ah oo masaajidka hortiisa feel ku galayo oo cuntada u fariisanaya ma arkaysid. maqaaxiyo taga ayaan cuntadooda dalbanaya oo cunay. sababta waxay tahay inta imaado waa inta wax heli karto waaye. dadka badanaa liita inta ma imaadaan badanaa. nin iska shaqaysto oo wixiisa isku dul saaran yihiin iyo nin boos ahaa inta imaado. saas darteed dadka maqaaxiyahay tagaan badanaa ma tagaan meelaha uu masaajida cuntooyinka lagu bixiya ma tagaan. sababta waxay tahay dad u baahanna ma ahan. haddana Soomaalida ma ogtahay waa dad iska faam jecel waaye. waxay isdhahayaan yaan lagu sawirin meeshaan. marka ajaanibta kaleetana waxay aaminsan yihiin qofka Soomaaliga inuu yahay qof taajir ah, qof nolosha ay u fadhido, qof ay u kala kacsan tahay inuu yahay aaminsan yihiin. sababta waxay tahay ma arkaan qof Soomaali ah oo Carab u shaqeynaya ma arkaan. qof Soomaali oo Hindi u shaqeynayana ma arkaan. ninka Soomaaliga inta imaado hadduu dhowr sano joogo maqaayada bidan waa maqaayad Soomaaliyeed waaye. waa diyaarsanta VEB waaye. kuraasteeda waa aragtaa
موجودة مثلا ودي يرمي قاعد Soomaali aragtaya waa moos aragtaya cida Soomaaliga waxay leeyihiin qiimo cad moos dhex yaalo kuwa kale kama arkis ta waqooyiga ma aragtay badanaa mooska mooska aad loo isticmaalo intooda ka mid yahay هذا موسكن أدي جدًا على كان إكوادور أو لاتين أمريكا أركا أنا أقول حرام موسكن إنه حق عني ماذا والله بسيلة وجد هذا كان محاسب نمبر حبة سمبوسة حبة مشمشة حبة برقة حبة مرة حبة ليمة يا حبة قرع كان وجد سيدو كلوان كيسنا زي العقب بدنا نقيس اياه اسدلينا وجدنا هذا حصل كان عصر هذا شيء كذا لما قحو ايوه حلو صدري كان بورش كان شربت جوا فديا عملنا كلي كان عمركم وفلني قف دايت قبو قف دايت كجرو لا عناي السلام عليكم وانا لسو aragteen kulay marka labadaas afurka ah waa $9 halka afur waa adiga $4 iyo wax la jiro iyo sentiyaal waay marka labada afur waa adiga 9.2 $9 iyo 2 senti waay marka adiga laga rabaa marka ma raqiisa mise waa qaali idinka joogta isweena inuu raqiis yahay iyo inuu qaali yahay aniga meesha waxa uu aaday in yani aydan tusiyo sida ay tahay ma qaali baa mise waa raqiis ma hini masaajidada maxaa la dhahaa waxa laga bixiyaa afur free ah ma baanta روائد السلامي وهذا التام فلسطين وحان كده البدر عنده وقت يقولوا وليك تايم وحيل الدنبوات ما انت عنت لي انك هدلينا مقتل حتى كانوا كليتات اسكا 8 درهم